Hrithik Roshan iyo Saif Ali Khan oo guul ka raadinaya meel ay ku fashilmeen Aamir Khan iyo Akshay Kumar. Soo dhawow daawade mar kale, waa anigoo Ahmed Deeq Xasan. Halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Filimka cusub ee Vikram Vedha ee ay jileen atoorayaasha caanka ah ee Hrithik Roshan iyo Saif Ali Khan ayaa tiyaatarada laga daawan doonaa 7 bisha Sebtembar. Hordhaca filimkan ayaa soo baxay 24 bishan Agoosto, waxaana markaasi kadib baraha bulshada ka bilowday dooda filimka Vikram Vedha. Filimka Vikram Vedha ayaa mid dib loo sameeyey oo originalkiisu ahaa filimada Tamil oo isla magacaas watay. Filimkii hore ee Vikram Vedha ayaa la sii daayey 21 bishii Luulyo ee sanadkii 2017. Hrithik Roshan iyo Saif Ali Khan dib u soo labashadoodu waxay noqotay film koobi ah. Filimkan waxaa maamulay Pushkar iyo Gayatri oo nin iyo xaaskiisa. Pushkar Gayatri ayaa si weyn looga mahadceliyey filimkan. Sanadkaas waxaa filimka la guddoonsiiyey abaalmarinta koonfurtu ay bixiso South Film Fare Award iyo abaalmarino kale oo badan. Dib u samayntiisa hadda waxaa weli maareeyayaal ka sii ahaan doona lamaanaha Pushkar iyo Gayatri, waxaana aad u sarraysa rajada taageerayaasha filimada ee ay filimkan ka qabaan. Muxuu filimku muhiim ugu yahay shirkadda aflaamta ee Bollywoodka? 2 sano ee ugu dambeysay xaaladda filimada ee Bollywood ma aysan wanaagsanayn. Shirkadaha waxaa si weyn u saamaysay xanibaadihii feerayskii Covid. Laakiin xitaa 2 sano kadib, shirkadda filimaantu kama aysan soo kaban dhabarjabkan. Weli waxaa la arkaa shaneemooyinka Bollywood oo ay kuraastoodu maran yihiin, waxayna taasi horseeday in dakhligii shirkadda ay aad hoos ugu dhacday. Daawadayaashu waxay sidoo kale ogaadeen halka ama waxyaabaha ay tahay inay ku bixiyaan lacagtooda. Filimaanta fashilmay 2022 marka laga eego 20kii filim ee ugu dambeeyey ee shirkadda ee 6dii bil ee la soo dhaafay soo baxay, 25 ka mid aad ayay u liiteen daawasho ahaan. Filimaanta fashilmay waxaa ka mid kuwa ay jileen atoorayaasha ugu caansan Bollywoodka iyo Hindiya. Waxaa ka mid 2 filim ee uu soo jilay Ranveer Singh ee kala 3 iyo Jayeshbhai Jorda, 2 uu soo jilay Akshay Kumar oo kala Samrat Prithviraj iyo Bachchan Bandey, iyo filimka ay soo jishay Kangana Ranaut ee lagu magacaabo Dhakat. Iyadoo ay shirkadda Bollywood wajahayso dhammaan dhibaatooyinkaas, haddana filimka Vikram Vedha ayaa la sii dayn doonaa. Bollywoodku wuxuu lacag ku helaa keliya dib u samaynta filimada blockbusterka ee koonfurta. Waxaa lagu eedeeyey in aysan keenin waxyaabo original dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Khubaradu waxay qabaan in filimkan laga ogaan karo mustaqbalka Bollywoodka. Maxay tahay sababta ay filimada Bollywood dhowaanahan hoos ugu dhaceen? Sida laga soo xigtay qoraal uu daabacday Nikhil Inamdar oo weriye ka howlgala BBC-da qaybta ganacsiga, waxaa jira sababo badan, laakiin tan ugu muhiimsan ay tahay waxa nuxurka ee filimka ku jira. Waxaa jirtay wakhti xitaa haddii nuxurka filimka aanu fiicnayn ay xiddigaha waaweyn taageerayaashooda ku soo jiidan jireen hoolalka shineemooyinka, taas oo horseedi jirtay in filimada si fiican loo daawado. Laakiin wakhtigu marka ka dambaysa wuu isa soo beddelayay oo dooqa daawadayaasha ayaa sidoo kale isbeddelay. Daawadayaasha ayaa hadda eegaya waxaa ku jira filimka oo fiiro gaar u yeelanaya. Sida ay khubaradu sheegeen, filimada Hindiga ee laga soo saaro istuudiyaha Mumbai ayaa waxaa ka maqan qaab dhismeedka quruxda badan, heesaha soo jiidashada leh, iyo dhaqdhaqaaqyada tartiibka ee filimada koonfurta. Intii lagu jiray xilligii xanuunka Covid, dadku waxay ka heleen filimaan badan oo kuwa musalsalka ee koonfurta laga jilay. Guuldarradii Aamir Khan iyo Akshay Kumar 11kii bishan August, waxaa soo baxay 2 filim oo ay soo jileen xiddigaha Bollywoodka, Aamir Khan iyo Akshay Kumar. Balse daawadayaashu ma aysan soo dhoweyn 2 filim oo rajo aad u weyn laga qabay inay soo noolayn doonaan hoos u dhicii Bollywoodka soo food saaray dhowrkii sano ee ugu dambeeyey. Aamir Khan wuxuu ku fashilmay filimkiisa Laal Singh Chaddha, halka Akshay Kumar loo daawan waayey filimkiisa Rakshabandhan. Guuldarrada way ku timid dadka oo baraha bulshada ku dalbanayay in aan la daawan maadaama shirkadda Bollywoodka lagu eedeeyey in ay muddooyinkii dambe samaynaysay waxyaabo ka dhan Hindiya iyo dadka Hinduuga
Saif Ali Khan iyo Hrithik Roshan ayaa hadda rajo laga qabaa in ay horseedaan dib u soo noolaashada Bollywoodka, inkastoo aan la ogeyn waxa ay kala kulmi doonaan shaleemooyinka dalkaasi Hindiya maadaama uu yahay filimku mid kobi ah. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biirsiina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah, waadna ku mahadsan tahay.